السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلوجيني عبشكو من محترف بلوج oo uga barateen inuu idin soo gudbiyo casharo fara badan oo ku saabsan IT information technology ka saabsan xalqadeenan maanta oo tii naga sugayay ardayda badidoodu aad u sugayeen waxaanu ku soo qaadan doonaa hostingka. Marka xalqadii hore registering website-ka website-ka loo register gareeyo dad fara badan ayaa email-kayga igu soo diray fariimo badan oo dhiirigelin isla markaana ay la dhaceen san arkay walaal likes kuba iska yaraadaan amaba likes yani jirine balse domain-ka marka ardayda waxaan u sheegayaa fadlan likeska si ardayda kale ay u aragto casharkan inuu wonderful oo aad loo cajabiyay likeska waa inaad isticmaashaan dhinaca like ama page-ka ka like garaa ama video YouTube-ka ka like garaa meesha doonta ka like garaa waana likeska ardayda kale ku dhiirigelisa soo casharkan qofku markuu casharada booqdo waxa dhacda inuu sira makanaad imika eegtaa mise kan kale marka kolba ka ugu like badan bay dadku eegaan marka waa inaad like ardayda kale ku dhiirigelisa si ay u aragto iyaguna inuu casharkan wonderful oo laga faa'iideysto aad u qurux badnaa. Marka waxaan soo qaadan doonaa xalqadii hore registering website baan soo qaadanay oo sida domain loo iibsadaa oo fikirkeeda aan ku soo dhaweeyay. Hostingkana waa sidoo kale marka waxa la isticmaalayaa in markasta Visa card ama Mastercard ka soo sheegnay ee jira. Marka hadaba shirkadaha sida aadka loola dhacay ee hostingka aadka ugu security-ga fara badan leh uguna fiican hostingka waa shirkaddan Bluehost la yiraahdo. haddii aad aragto Bluehost shirkadan la yiraahdo meelo badan bay website badan oo gashay ee lagu xayeysiiyaa oo lagaga warama Bluehost aad arkayso oo kale hosting samayso ama domain iibso waxyaabo noocan mid kale Bluehost waa hosting oo kaliya hosting company weeyaan iyadu marka waxa jira shirkado domain-ka iyo hosting-kiiba isku jari kara oo isku daraya sida GoDaddy oo xalqadii hore ku soo qaadanay sida loo register gareeyo domain ama aad uga iibsato inuu ku soo qaadanay marka tan kale aad ay ugu fiican tahay dhinaca hostingka tan Bluehost ayaa aad loo isticmaalaa oo sad aragto waxa ku leeyahay 2 million websites ayaa cash isticmaala Bluehost-geeda marka waxa ku fiican adiga markasta in aad isticmaasho shirkad markasta online oo aad isku dhiirigeli karto shirkadaha dabcan waxa kuga caawinay waxa ku sheegay in aad iska wada akhrido waxay qabtaan maxaan qabanaa oo kale ama products-ka bixiyaan oo kale si fiican aad u akhrido adiga kugu xirantay kolba ka isku kalsoonaysa anu dabcan ka oran maayo ka qabso ama kan ku dhig oran maayo GoDaddy-gan oo kale uu fiican yahay dad gasho waxa jira laakiin malaayiin yar oo kale oo la garaneyn ama magacyadooda dirqaad u maqli karto oo website Soomaaliya qaar ay ku dhisan inaan arkay oo hosting ay kaga dhisan oo kale marka hosting horta waa maxay hosting ereygan hosting ayaan ku waalay marka hosting horta waa maxay hosting waxa weeyaan website-kaaga markaad samayso tusaalaan warar baad qortay waxaad qortay 100 news baad qortay 100 war aad qortay 100 ka war waxay u baahan yihiin meel lagu kaydiyo ay u baahan yihiin oo haysa wararkan si dadka kale 2015 markaad qortay 2019 soo gali doona ama 2020 hadii aynu gaadhno dadka soo galaya 2020 ka ay ka akhristaan wararkii hore waxaad aragtaa website kasta uu hayaa wararkii hore oo dhan maxaa keenay hadaba wararkii hore inay sii jiraan waa hosting waa martigelinta marka laba siyood ayaad wax hosting gareyn karaysaa hadii hosting waxa weeyaan hosting company hadii aad maqasho shirkad martigeliye waa shirkad soo iibsanaysa server waaweyn kadib oranaysa dadka waxaan ka iibin adiga serverkii waxa laga yaabaa inuu yahay 5 terabytes ama 500 terabytes ama wax tira aad u fara badan oo GB waxa dhaaftay kor u dhaaftay 100 jeer dhaaftay oo maskaxdeedu aad u weyn kuwaas ay lacag soo siisanaysaa shirkadu meel bay furanaysaa kadib waxay leedahay web hosting baan sameynaa kadib website-yada oo ogolaanaysa mid kasta waxay ka iibinaysaa inteen ka iibiya ama 100 GB baan ka iibiya sidii markii dhaweed tan baad ku arkayseen qaybtan hosting-ka aad ku arki doontaan web hosting-ka markan Daddy galno hosting-keeda waxaad arki doontaa oo kale ma 100 GB baan ku siinayaa ama mar waxaan ku siinayaa unlimited storage oo inta doontaad ku kaydsan karaysaa wararka kan kale waxa saas oo kale marka storage-ka ay ku qabanayaan
ayaa la yiraahdaa hosting company la oranaya. marka hosting company waa taas serverada soo iibsanaysa ee ku suura gelinaysa in ay ku hayso webkaagii. sidoo kale waxaad samayn karaysaa habka labaad waxa weeyaan adoo shirkad isticmaalin haddii aad leedahay server aad u ballaaran ood ku kalsoontahay. dabcan waxa fiican markasta haddii aanad lacag aad u fara badan oo shirkado kale hayn waa inaanad isku halayn server aad iska leedahay, sababtoo serverkaagu iska buuxsami karaa, cilad baa ku iman karta, waa one server. laakiin shirkadu billions of servers bay isticmaalaysaa, waxaan jeedaa billions ma gaaraysa laakiin serveraadu waa weyn oo fara badan ay isticmaalaysaa oo laga shaqeeyay maalin kastana la shaqeeyo. marka iyada haddii miri ka xumaado xataa 10 haday ka xumaadaan dhib ma aragto, kuwii kala u shaqeynaya. marka adiga webkaagii baa fadhiisanaya haddii ka xumaado. sidoo kale shirkadan hosting company waa shirkada 24 hours kaba webkaaga ka dhigaysa in internetka laga helo. dabcan waxaad aragtaa internetka website-kaagu de wuxuu noqon lahaa in qofka intuu soo galo tusaalaan muxtarif.blogspot.com oo kale ama muxtarif.com website-ka intuu soo galo ama kuwa taqaanaan aljazeera.com kadib markuu soo galo imika uu shaqeeyo bal ka waran hadduu webku shaqeyn lahaa 3 saacadood ka bacdi uu iska baxayo website-kaadi waayaysa ama qofka markuu soo galo la waayiyo website-ka hawada la waayiyo. kaasoo kale waxa web hosting waa inuu yeeshaa. hosting waa shirkada 24 hours kaba ku ilaalinaysa in webkaaga information ama data aad gelisay wararka aad gelisay ku ilaalinaysa inay online noqdaan oo dadkoo dhan ay helaan. kaas ayaa la yiraahdaa sidoo kale hosting. marka hostingka laftiisa waa lacag. haddii hosting aad iibsato keligii waxaa laga yaabaa in lagu siiyo domainka free lagu siiyo. marka hostingka markasta muhiimsan waa inaad ka fikirtaa ood baadhaa adigu. waxaa jira website-yada yar oo kale GoDaddy iyo hosting Bluehost aan ahayn oo aad u fara badan. kuwaasoo kale waxaa dhaca dhibaatooyin baa lagu arkay oo dadku ay ka iibsadeen hostingka. dhibaatooyin baa lagu arkay waa shirkad yar oo imika samaystay dhaqaale badan aan ahayn kadib serveradii baa ka fadhiista ama 3 webkii serveradeedii fadhiistaan ama shirkadii wax ku yara dhacay ciladii kadib waxa fadhiista million websites baa maalinka fadhiisanaya oo shaqeynin oo khalkhal ku dhacaya. waa inaad baadhaa taariikhoodii imise jeer buu xumaaday wararka iyo waxa la socota aad ka baadhaa google-ka bal inuun. marka dabcan labadana waa labada aadka ugu caansan adigu waa dooran kartaa ka kale laakiin anigu waa kuu sheegay oo kaliya ta. haddaba hostingka haddii aynu akhrino tan waxayna leedahay hosting is what makes your site visible. hostingka waxa weeyaan waa waxa ka dhigaya website-kaaga visible, mid laga heli karo ama laga arki karo on the webka. dabcan network ugu ballaaran waa internetka. marka webka waa waxa ka dhigay visible in laga dhex arko. we over fast oo qofka markuu baadho magacaaga ku baadho uu heli karaa, hostingka heli kara. marka waa shirkada ku ilaalinaysa wayna oran karnaa we over fast. anagu wuxuu ku leeyahay haddii hostingka aad naga iibsato waa uu dheeraynaya oo markuu qofka qoro tusaalaan www.godaddy.com enter uu siiyo ama muxtarif.com oo kale uu qoro enter siiyo uu soo boodaya website-kii si dheeraynaysa. we over fast reliable oo isku kayaalan kartaa balaanis markan. marka qaabkaas oo kale aad u akhriyaysaa web hosting-kii oo kale marka sii doorato shirkadii rabto hostingkaaga inaad ka iibsato qaabkan ay kugu kala qaybisay economy, deluxe iyo ama deluxe saad u akhri karto ultimate. noocaas ay kugu qaybisay ultimate-ka ugu qaalisan hostingka. marka kan waan ka iibinaa wiil 50% weeyaan $6.99 per month ayaad bixinaysaa. waa $6 ayaad bishiiba bixinaysaa ayaad diraysaa sanadna waad ku bixin karaysaa adiga ku jirta. marka one website baan ku host garaynaa bay koornayaan. kan waa hal website. macnaha hadii aad qaybtan economiga aad bixinayso $6 aad bixinayso hal website un baan ku host garaynaa. website fara badan kuma host garaynaa hadii aad shirkad tahay oo website fara badan leedahay. marka dabcan aad kaliya baad iska tago one website baad u baahantahay laakiin qof dad baa jira one website aan u baahanahay laba website iyo waxa soo kale u baahan. kuwaas waxay bixinayaan $8.99 ay bixinayaan oo sidii ay maalintii hore sharaxnay ayaa looga baxayaa webka inay kaarkaaga adoo numberkaaga iyo qoraya. marka kan iyo kan maxay ku kala duwan yihiin? kan one website baa lagu siinayaa 100 GB oo storage ah. macnaha website-kaaga intaad ku kaydin karto bil kastaaba waa 100 GB ayaad wax ku kaydin kartaa. 100 GB oo warar ah, fiidiyoyadii, sawiradii ah. marka dabcan way yaraan kartaa laga yaabaa inay kugu yaraato website-yada aad ku shaqeeya way ku yaraan kartaa. Aljazeera kale kan ma qaadan karo. xataa kan waa laga yaabaa inuu qaadin kan ayaa laga yaabaa inuu qaato ama ka dambe uu qaato
inkastoo isagu u malaynayo inuu server gaar ah iska leeyahay 100 email addresses baa isticmaalaysa oo inaga xalqadii hore ka soo haranay emailada isticmaalaysa ee wonderful ka professional ka way ee aad ka quruxda badan leh oo tusaale inaad tiraahdo abdishakuur@muxtarif.com oo kale halkaas isticmaal lahayd muxtarif@gmail.com ama website shirkadda leedahay @yahoo.com @hotmail.com waxa isticmaal lahayd ama outlook kuwaas ayaa waxa lagu siinayaa 100 email addressyo ayaa lagu siinayaa 100 email oo isticmaalaysa kortaas free domain ayaa lagu siinayaa hal domain oo free ah waanigi ku sheegay hadii hosting aad iibsato hal domain oo bilaash ah lagu siinayaa baagabna uu leeyahay restore marka qaybtan kale labaad hadii 8.99 aad bixiso oo $6 lacag ku kordhiso oo tira qaybtan aan qaadanaya anigu oo tan iibsato hostingan unlimited websites aan lagu xadidin ayaa lagu siinay macnaha 100 website 1000 website 2000 oo website ayaad ka dhex samaysan kartaa oo hal hosting leh oo lagu host gareeyo shirkadan 2000 ba ku haynayso unlimited storage sidoo kale inta website-kaaga lagu kaydin karo warariyo waxaas oo kalena waa unlimited waa tira aan lagu xadidin oo aad u fara badan waxa doontaad ku kaydin kartaa 100 milyan of videos aad ku kaydin kartaa oo marka hostinga noocan ay bisto laakiin bil kasta waa 8.99 bixisa unlimited bandwidth ayaa lagu siinayaa data in unlimited 500 email addresses waxa lagu siinayaa 500 halkii markii hore 100 bay ahay emailadu free domain with annual plan ayaa lagu siinayaa qaar qorshayaal si loo with annual plan waxa laga wadaa macnaa .com .co .net .org kuwaas oo kale la socdaan free ayaa lagu siinayaa free domains kan kalena waa san oo kale laakiin processing power and memory wax noocaas ayuu sii dheer iyo 1 year ayaad ku bixin karaysaa marka kuwaas aad ku iibsanaysaa qaabka sida loo iibsanay add to cart baad oranaysaa sidii markii hore aynu soo tilmaamnay registering ayuu la mid yahay kadib sidii caadiga ahayd ayaad uga iibsanaysaa course iyo wixii aad qoraysay shirkadda caadi baad uga iibsanaysaa ay kaaga iibinaysaa marka oo tusaale ahaan hadii aan ku tuso ku yara tuso waa kan oo kale ma per month ayaad ku bixin doontaa ma 12 hadii sanadkii baad ku bixinayso waa kan waa imika waxaan ku dhuftay baan filayaa bilaankii koowaad mise kii labaad baan ku dhuftay moojikan ku dhuftay ma garanayo kii $8 ahaa iyo kii $6 ahaa ma kala garanayo ku ahaa balse intaad bixinaysaa waa kan ma per month ma 12 biloodba mar baad bixin ma 24 bilood oo 2 sano mar baad bixin ma 4 sano mar bixin qaabkaas oo kale aad u bixin karaysaa adiga xor ah halkii sanad aad bixin lahayd halkaad bil bixin lahayd sanad baad oran kartaan bixiyo tusaale sanadkii laga yaabo inuu noqdo $5 meelaha waka ilaas oo kale ama kii hore 8 markuu ah 8 times 12 months oo kale de meelahaas ay noqonayaan qaabkaas oo kale stepskan iyadana buuxinaysa continue marka tiraadana wuxuu ku geenayaa qaybtii kale ee cardka aad buuxinaysay marka saas aad uga iibsanaysaa wixii dambana waa cardka mar kasta labadani waxay ku xidhan yihiin cardka inaad qaato marka waxaan filayaa in waxoogaa information yar oo ku saabsan hostingka iyo soo dhacana inaan ku soo yara dhaweeyay walow aanan si fiican ku wada siinbe ama aan si fiican ku siiyay kulay adiga arki doona fadlan haygala bakhaylna lay garayso in casharkan hadii aad ka faa'iideysatay kulay waxaan filayaa inaad ka faa'iideysatay si anna aan ugu dhiirigeliya casharada dambe oo noocan oo kale aad fiican aan kugu soo dadaalo waxa jira arday qaar soo weydiinay sida loo sameeyo kanaal oo kale xalqadaas way soo socdaan oo kale way diyaar waan soo wadaa insha Allah marka xalqadaha dambe inta ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh